gabar walba quruxdeeda waa xijaabka. هاي 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 يا معان هاي 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 يا معان هاي هاي. Sheekadan aan maanta idiin wadno waxay dhex martay gabar iyo aabaheed. Gabar ayaa waxay soo iibsatay taleefan qaali ah. Aabaheed baa taleefankii ku arkay. Markaas ayuu ku yidhi aabbo, taleefankan markaad soo iibsatay wixii ugu horreeyay ee aad samaysay maxay ahaayeen? Gabadhii ayaa waxay ku jawaabtay, waxaan soo geliyey qolof kore hoteelka difaac u noqonaya, kana ilaalinaya inuu jabo ama xagatin soo gaarto. Aabbihii ayaa wuxuu yidhi aabbo, cid kugu qasabta miyaa jirtay inaad sidaas samayso? Gabadhii ayaa waxay tidhi, maya, layguma qasbin, laakiin aniga ii anfacaysa inaan sidaas sameeyo si teelkayga u nabadgalo. Aabbihii ayaa wuxuu yidhi aabbo, ma kula tahay inaad bahdishay shirkaddii taleefanka soo saartay? Gabadhii ayaa waxay ku jawaabtay, maya aabbo, shirkadda ayadaaba noogu talinaysa inaan taleefanka qolof u samayno si uusan taleefanka nooga jabin. Aabbihii ayaa wuxuu ku yidhi okay aabbo, qolofka miyuu qiimo tirayaa teelka? Gabadhii ayaa waxay tidhi maya aabbo, waardiye ayuuba taleefanku yahay oo wuxuu ka ilaalinayaa inuu jabo ama garaafa ay soo gaarto. Aabbihii ayaa wuxuu ku yidhi, gabadhaydiyey, miyuu foolxumo u keenay qolofka aad taleefanka soo saartay? Gabadhii ayaa waxay ku jawaabtay, aragtideeda ma uusan foolxumayn ee wuu buqurxiyey. Aabbihii ayaa intuu si naxariis leh gabadhiisa u eegay ayuu ku yidhi aabbo macaane, ogaaw xijaabka waa sidaa oo kale. Ilaahu waalidkeena u dambi dhaaf.